Alla maxaana soo kaxeeyey ayaa dadka qaar ka soo yeertay. Dhibkan haddii aan ogaan lahaa ma soo aadeen, rag baa laga hayaa. Gabdhaha waxaad mooddaa in aysan orodka qorshaha ku darsan markii hore. Waa sawir naxdin iyo uur ku taalo leh. Labada nin oo xabashida ahi mid waa na hor socdaa, midka kalena gadaal ayuu dadka ka socdaa. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhowaada sheekadii la magac baxday maan tahriibeen qaybtii afraad. Waxay qaybtii hore sheekay noo maraysay Guuleed iyo asxaabtiisii oo qofba mawjad ku jiro gaarigiina wada saaran. Wuxuu leeyahay Guuleed, waad lugaynaysaan ayaa nagula dhahay. Baabuurkii Addis Ababa naga soo qaaday habeen kadib wuxuu na keenay Gondor, Itoobiya. Xalay oo dhan waxba maanan cunin. Habeen iyo maalin kale ayaan joognay Gondor oo ay gaajo nagu dileen. Waxay na geeyeen guri 2 qol ah. Qol gabdhaha ayaa seexday, qolna wiilasha. Guriga wax firaash ahi ma yaalaan. Alleeleh biyo keliya ayaan cabnay. Marmar waxaa noola fasaxayay in aan suuliga galno. Subaxii labaad aroor hore ayaan ka dhaqaaqnay magaalada Gondor. Goor ay tahay 1:00 duhurkii oo aan ku dhownahay xuduudda Itoobiya iyo Suudaan ayaa baabuurtii dhammaantayadu nagala dejiyey. Waxaa naloo kaxeeyey annaga oo lugaynayna meel keyn ah. Markaan waxaa nala socda 2 nin oo xabashi ah. Waa 2 nin oo aad u naxariis daran. Halkan ayaan orod ka bilownay. Meeshaan waaye meeshii dad badan ku hoogeen. Qaar baa iska ooyay. Alla maxaana soo kaxeeyey ayaa dadka qaar ka soo yeertay. Dhibkan haddii aan ogaan lahaa ma soo aadeen, rag baa laga hayaa. Gabdhaha waxaad mooddaa in aysan orodka qorshaha ku darsan markii hore. Waa sawir naxdin iyo uur ku taalo leh. Labada nin oo xabashida ahi mid waa na hor socdaa, midka kalena gadaal ayuu dadka ka socdaa. Goor casarliiq ay tahay, libdhaduna weli aysan dhicin, ayaan arkay wax aanan filayn. Wax aanan arigiisu ku farxin ayaan arkay. Ka waran haddii aan ku dhaho libaax ayaan arkay. Aragti run ah ayaan arkay. Isagoo weliba keynta dhexdeeda taagan. Naxdin badanaa waan hubsaday oo haddana waan sii dhugtay. Wadnaha bannaanka ii yimid. Maxayse kugu taallaa? Afkayga ayaan xirtay oo cidna uma sheegin. Waxaan dhexgalay dadkii ordayay. Show dadka qaar baa arka bahalka. 2dan xabash ee mukhalisiinta ahna way u jeedaan libaaxa. Qof juuq yiri ma jiro oo qof waliba afkiisa ayuu ka adkaaday. Naftiisana wuxuu la doontay meel aamin ah. Badhanka ayuu qof waliba safka ka galay. Bahalka marba dhan ayuu iska kaytusayaa intaas. Alla baqdin badanaa. Waxaan arkay bahalkii oo ilbiriqsi gudaheeda dhanka kale ka soo wareegay. Markaan waxaa nafteeda ku soo dhacday in ay libaaxyo tiro badani joogaan. Maanta ayay kugu dhammaatay. Adaa libaax lugaha ku soo doontay. Bal maad iska joogtid gurigiinna. Mar kaliya aan safarkaygii ka qowmameeyey. Waxaa iskay tusay annagoo caaba libaax mid noola haray. Iyo aniga oo qaylinaya oo cidla libaax liiga tagay. Ilaa cid kaa naxaysa oo loo ciirsado ma jirtee. Intaas waxaa iga daran gaajada iyo haraadka i haaya. Waxaan afka saaro waxaa igu dambaysay maalintii aan Addis Ababa ka soo baxay. Xoogaa biyo ma ahine. Dadku caaq ayay taagan yihiin. ninka xabashiga ah
oo gadaal naga socda. Qofkii daala ee uu ka dareemo inuu socod karaynayo wuxuu u karbaashayaa sidii xoolihii. Aniguse libaaxa markii aan arkay awood aan awal igu jirin ayaa isoo gashay. Dadka ayaan dhex kaga jiraa, orodkaygana waaba la yaabay. Qorraxdii ayaa dhacday, hadda habeen ayay noqotay, dadkiina way daaleen. Waxaa bilowday in qofba mar cabaado oo dhaho ma socon karo. Mid dhinacayga socday ayaa orodkii kari waayay. Waxaan arkaa kiyo sarwaalkii qoorta ku sita, intuu dabagaab isku soo reebay ayuu neeftuurayaa. Aniga meeshan ayaan ku dhimanayaa ee halkan iga taga, gabar baa i tiri. Dadkii intii badneed way sii socdaan, aniga iyo 6 qof oo kale ayaa ku soo laabtay oo qabanaya labada garab. Eeg, waa gabar da'dhaxa ah, waa hooyo carruurteeda ka soo tagtay. Waayaha nolosha ayaa salkiciyey. Anigu si dhab ah oo lama socdo duruufteeda iyo waxa bada silacan tahriibka. Waxaanse wejigeeda ka akhrisanayaa waayaha iyo duruufta haysa. Garbaha ayaan qabannay gabadhii, iyada oo marba 2 qof isla qabanayaan. Oohinta iyo calaacalku waxay ka mid noqdeen wehelka safarka. Dumarka mid baa uur laheed. Waxaa dushayada haraysay daruur murugo iyo quus xambaarsan. Mar keliya ayaan oohintu isla oogsatay. Raggii tahriibta u soo bareeray way shallaayeen. Waxaan la filayn baa lala kulmay. Tabartii ayaa qof waliba ka dhammaatay. Bal qiyaas, dadkan waxay raadinayeen nolol qurux badan. Caawase waxay hortooda taallaa dhimashadoodii. Waxay garwaaqsadeen inay ku socdaan safar indhala. Inkasta oo Alle libaaxa galabta naga reebay, haddana weli cidna ma hubto in uu na daba socdo iyo in kale. Laakiin wax libaax ka daran ayaa na haya, waa daal iyo tabar darro. Waa culays dadka qaar ku kalifay inay yidhaahdaan ma socon karno ee halkan ayaan ku haraynaa. Bal qiyaas, qof kayn mugdi ah looga dhex tegay. Wuxuu weheshan doonaa dugaagga. Wuxuu isaga oo soo jeeda xaqiiqsanayaa inay tahay saacadihii noloshiisa ugu dambaysay. Anigu waxaan ka mid ahaa dadkii quusta ku dhowaaday. Waxaan sawirtay aniga oo keligay gudcurka liiga dhex tegay. Waxaa igu darneed markii aan ka fikiray qaabka aan u dhiman doono. Waxaan isweydiiyey, talow ma gaajo ayaa u dhiman doontaa, mase libaax ayaa kugu cashayn doono. Waxaan sawiranayay raxan libaaxyo ah oo igu soo qamaamaysa. Waa daqiiqadihii ugu muruga badnaa noloshayda. Waxaan arkaa libaaxii ugu horreeyey ee anigoo soo jeeda gacanta i goostay. Dhimashada xanuun badana. Waan qaylinayaa, cidse ilama joogto. Cid aan miciinsado ma laha. Talow ma cuqubadii waalidka darteed ayay waxaan kuugu dhacayaan? Ma hooyada ayaa ku habaartay markii ay maqashay inaad tahriibtay? Ilaahayow nafta kaa qaada oo adigoo meyd ah bahallahu ha ka cunaane. daqiiqadaas waxaa keliya ee aad ka fikiraysid waa naftaada. Taleefankan qor, reerkayga wac, una sheeg inaan dhintay. Iyada oo ilmada ka socota waxaa hadalkaas tiri gabar lagu magacaabo Boosteya. Way quusatay oo is soo dhiibtay, lugahana dhiig ayaa ka socda. Walaal kaa tegi mayno ee ina mari, waan wada dhimanaynaa ama waan wada noolaanaynaa. Dhowr dhalinyaro ah oo aniga aan ku jiro ayaa dul taban oo baryaya inay kacdo oo adkaysato. Socda, maxaa idin taagay? Xabashkii baa ul iyo qaylo nala dul yimi. Waa gartiis isaga, gaajo ma hayso iyo daal midna. Wallaahi in aanan gabdhaheenna ka tegaynin, taga, waan idinka daba imaanaynaaye. Cawaale ayaa ugu jawaabay, isaga oo caro darteed indhaha galka ka soo saaray, dhididna ka socdo. Ninkii xabashiga ahaa waa uu sii socdaa, wuuna gudbay isaga iyo kooxdii kale. La soco qaybaha kale.
qaybtanse maxaa kaaga baxay fikirkaaga hoos noogu reeb muuqaalkana like saar shakhsi ahaan qaybtan aad ayay ii muruggelisay xitaa waxaan ku sigtay inaan ilmeeyo waad ku mahadsantay daawashada muuqaalkani fadlan sii sheergaree waa walaalkiin maxamed amiin oo ina leh la soco qaybta xigta